xafladda qalinjibinta in ka badan kun arday oo ka qalin bedelinaya dufcadda 24aad ee jaamacadda Muqdisho University ayaa maanta lagu qabtay xarunta weyn ee jaamacaddu ay ku leedahay degmada Dar es Salaam. xafladan oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka sare ee jaamacadda Muqdisho, waalidiin, ardaydii qalin jabinaysay iyo marti sharaf kale. diiwaan hayaha guud ee jaamacadda Muqdisho Cabdulqaadir Cabdinuur Barre ayaa ku dhawaaqay qalin jabinta ardayda. golaha jaamacadda Muqdisho wuxuu fadhi ku ansixiyay in dafcadda 24aad jaamacadda Muqdisho ay dhameeyeen waxbarashadoodii bachelorka ahaa. ardada sanadkaani jaamacadda dhameysay tiradooda waxay gaaraysaa 1065 arday oo isugu jira 8 kulliyadood iyo 26 takhasus. waxayna kala yihiin 528 arday oo boqolkiiba ka ah 49.6 waa gabdho, 537 arday oo boqolkiiba ah 50.4 waa wiilal. marka meeshaas waxaa ka dareemi kartaa in wiilasha gabdhaha ay wada siman yihiin. waa 50 arday, 50 iyo 50 waa farqi yar u dhaxeeyo macna lahayn, waa isleeg yihiin. sanadkaani waxaa xusid mudan jaamacadda waxaa ka qalan jabiyay takhasusyo cusub kuwaasoo kala ah 4 takhasus oo cusub. waxayna kala yihiin Management Information System MIS, International Trade and Business ITB, Nutrition and Dietetics iyo Enterprise Networking. waxaan leeyahay hambalyo. intaasi kadib qalinjabiyaasha ayaa loo dhaariyay inay si hufan bulshada ugu adeegaan cilmigii ay barteen. inaan daacad u noqonayo diintayda. waxaana munaasabada ka hadlay Dr. Maxamed Xuseen Ciise iyo agaasimaha xafiiska qalinjabiyaasha Sayid Cali Xuseen Gacbane. jaamacadda waxaa ka qalin jabiyay arday iyo aabihiis iyo awowgiis. waxaa halkaas aad ka fahmi kartaa in uu adeegista bulshada Soomaaliyeed ay jaamacaddu muddo dheer ku soo jirtay. waxaan rabaa inaad kula dardaarmo maadaama aad tihiin oo laydinka rabo inaad ogaataan inaad tihiin safiiradii jaamacadda matalayay meel kastoo ay tagaan, inaad ilaalisaan sharafkiina, sharafka jaamacadda iyo sumcadda jaamacadda. waxaad matashaan matid hal qof oo iska socda, waxaad tahay qof matala jaamacaddii Muqdisho oo xambaarsan cilmigeedii iyo shahaadadeedii. bulshaduna waxay kaa sugaysaa cilmigii aad baratay inaad ku dhaqanto, ku camal fasho oo sidii lagugu talagalay aad ugu fasho. marka arrintaas ayaa waxay u baahan tahay in aad naftaada ku adkayso. jaamacadduna waxay doonaysaa inay kugu adkayso oo ballan kula gasho oo la leeyahay cilmigii akhlaaqda badnaa ee lagu dhaqmayay ee aad soo baratay inaad adiguna bulshada ugu adeegto si hufnaan iyo eexla'aana ay ku dhisan tahay. marka waxaan rabaa in sida ahayd jaamacadda in ballanta lagula galo dhammaan qaybaha kala duwan. inkasta oo meelaha qaarkood caalamka ay si gaar ah kulliyadaha qaarkood daarta ay uga dhigaan, laakiin inta badan waxaa loo badan yahay in loo baahan yahay ballanta in la wada galo. in cilmiga waa loo baahan yahay, waa loo wada baahan yahay in lagu samo. waxaan rabaa marka in aad ila tiraahdaan gabdhahayga iyo wiilasha sharafta badan
ee maanta qalin jabinaya idinkoo ag jooga macallimiintiinnii maamulkiinnii waalidkiinnii dadkii aad jeclaydeen idinkoo ag taagan oo marxalad weyn ka soo gudbay oo noloshiina ka mid ah in aad bulshadiina inaad u adeegtaanna diyaar u tihiin inaad ila tiraahdaan ayaan rabaa waxaan ballan magaca ilaahay ku gelayaa oo ku dhaaranayaa magaca alle inaan daacad u noqonayo diintayda iyo dalkayga marka inaad ila tiraahdaan baan rabaa hal mar inaad ila tiraahdaan waxaan ku dhaaranayaa magaca alle inaan daacad u noqonayo diintayda dalkayga iyo mihnadayda aan bartay uguna adeegayo bulshadayda si ku dheehan sinaan iyo dhowridda xuquuqda bini aadamka oo aan lahayn ama kala sooc nooc walba oo ay ahaato alla ayaana markhaati gashaday allahu akbar allahu akbar gudoomiyaha jaamacadda muqdisho Dr. Ibrahim Maxamed Mursal oo gabagabada munaasabada kelimad ka jeediyay ayaa ardayda kula dardaarmay inay ilaaliyaan habdhaqankii wanaagsan ee jaamacadda lagu soo baray isla markaana cilmiga ay barteen ay ku anfacaan bulshada isagoo oo sheegay in jaamacadda muqdisho aysan lahayn albaab laga baxo laakiin ay leedahay albaab laga soo galo taasi oo ka dhigan in bahweynta jaamacadda muqdisho ay yihiin kuwa isku xiran waa maalin farxadeed waa maalin xusuus loo dibdhigan doona carruurta aad dhali doontaan iyo kuwaad dhasheen iyo kuway sii dhali doonaan sawirka aad maanta iska qaadaan ay xusuus u noqon doonto waa maalin aad iyo aad u qiimo badan oo annaga iyo waalidiintii idin dhashay iyo waalidiintii idin soo bartay labaduba laba waalidwa labadooduba ay idin garab taagan yihiin oo idinla qaybsanayaan waa maalin aad iyo aad qiimo weyn inta maanta qalin bedelanaysa iyo waalidiintoodu labada dhiniciiba ay aad iyo aad ugu weyn waxaan rabaa hambali iyo bogaadin inaan u soo jeediyo halkan waalidiinta sharafta leh ee carruurtan ama dhallinyaradan ama madaxdan midii la yidhaahdo labadaba waa la soo yidhi madaxda maanta aan ku dabaaldegayno waalidiintii nagu garab taagnaa muddadayna la joogeen hadday 4 sano tahay hadday 5 sano tahay hadday 6 sano tahayba intaba maanta dadka qalin bedelanaya ayay ku jiraan arday 6 sano ah kuwa 5 sano ah kuwa 6 sano waalidiintii dhinacooda ka taagnaa ayaan leeyahay hambalyo mahad ballaadhanna waa idiin celinaya waxaan mahad ballaadhan u celinayaa maamulka jaamacadda macallimiinta hormuudiyada oo ardadaas tarbiyadooda iyo waxbaridooda muddadaa dheer soo garab taagnaa ee dadaalka ku soo bixiya aad iyo aad baan idinla umahadsantihi waxaa kaloo mahad ballaadhan u celinayaa hay-aadkii nagu garab taagnaa ardadaas muddadaa dheer sida hay-adda qadar jaarati qadar alkhayriya ustaad cabdifataax iyo tiimkiisa oo cadad badan oo ardada jaamacadda ka mid ah muddo dheer jaamacadda ay soo jirtay oo 30 sano ku dhow na soo garab taagnayd ilaa maantana na sii garab taagan maantana ay madax ka yihiin oo isku beddeleen ardadii jaamacadda ka baxday qadar alkhayriya aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaan anoo ku hadlaya magacayga iyo magaca jaamacadda iyo maamulkeeda iyo waalidiintaba aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa waa mahadsantihiin waxaana rajaynayaa insha allahu sidaan idinka baranay waadna sii garab taagnaan doontaan ilaahay
ardayda qalin jebinaysa ee dufcadda 24aad waxay isugu jiraan arday ka qalin jebisay qaybaha kala duwan ee kuliyadaha jaamacadda waxaan la hadlay qaar ka mid ah ardayda qalin jebinaysa iyaga oo dareenkooda cabiray waa dhawahay magacayga waa Mumtaaz Shaafici Sheekh Cabdiraxmaan Mubarak alxamdulillah maanta aad iyo aad u faraxsanahay inaan 4 sano dadaal soo waday amaanta ka qalin bedelanayo dareenkayna mid la soo koobi kara ma ahan waxaan awalan meesha ugu mahadcelinayaa waalid Allah subhanahu wa ta'ala markii xigtana waxaan mahadcelinayaa dhammaan waalidiintayda riintii soo garab istaagtay si aan u gaaro maanta guushaaneeto sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa maanta garabkayga taagan hooyaday macaan ilaahay abaalka jannaha ka dhigo oo sabab u ahayd inaan maanta soo gaaro heerkan iyo guushaan aan helo sidoo kale maanta waxaan u hambaliyeenaa dhammaan ardayda oo isku yani hadda sanadkan isla baxno iyagana maanta qalin bedelanooyin kulli inta waxaan ka leeyahay hambalyo ilaa cilmigana ka dhigo mid aan ku anfacno oo ummadana aan ku anfacno anagana nafsadina aan ku intifaacno Allah ka dhigo waa ku dhawahay Somali Cable TV aad iyo aad u maasantihiin maalin farxadeed noo tahay maalin weyn noo tahay magacaygu waa Axmed Baaci Axmed waxaan sanadkan ka qalin jebinayaa jaamacadda Muqdisho kulliyadda waxbarashada iyo culuumta aadanaha gaar ahaan takhasuska cilmiga adeegista bulshada ama sida loo yaqaan social work wallahi dareen badan ay tahay farxad badan ay tahay guul ay iga dhigan tahay in dhammaan ardayda qalin jebinaysa ee kun iyo dhowrka arday ah ee jaamacadda Muqdisho maanta ka qalin jebinaysa inaan kaalinta labaad u galo sidoo kale waxaan jaaniskayga rabaa inaan ugu faa'iideysto inaan u hambaleeyo walaalkay Abdifataax oo hormuud noo ah oo kaalinta kuwaad noo galay marka arintaas aad aan ugu faraxsanahay alxamdulillahi rabbil alamin wal aaqibatu lil muttaqiin wala udwana illa ala zalimin aad u maasantihiin Somali Cable waan ku faraxsanahay maanta inaan meeshan ka soo muuqdo horta Allah subhanahu wa ta'ala ma hada iskale oo maanta inoo suurtageliyay inaan dadaalka iyo juhdiga soo wadnay si guul ah ku dhameysano alxamdulillah maanta magaceygana waa Abdifataax Maxamuud Axmed waxaan ka mid ahay ardayda baajilaatin afar ee jaamacadda Muqdisho ka qalin jebinayso sidoo kale aad ugu faraxsanahay maanta inaan kun iyo abaf u noqdo hormuud waliba u gala kaalinta koowaad wax sahlan ma inaan kaalinta koowaad gashid laakiin waxay u baahan tahay dadaal dheer iyo juhdi dheer Allah subhanahu wa ta'ala ayaa u mahadcelinaya oo ii suurtageliyay maanta inaan heerka soo gaaro sidoo kale waxa u mahadcelinaya waalidiinteeda ayagana iga caawiyeen oo soo garab istaagay sidoo kale waxa u mahadcelinaya dhammaan macallimiinta jaamacadda kuwaas oo ayagana garab istaag ii fadiyay sidoo kale waxa u mahadcelinaya maamulka jaamacadda kuwaas oo ayagana dhiirinaan iyo scholarship ee siiyeen heerkan ku soo gaaray 4 sano ayaa baranay kuliyadda dhiganayo oo ahayd kuliyadda culuumta dhaqaalaha iyo maamulka qaasatan business administration waa ku faraxsanahay maanta in baajilaatin 4 anoo qalin jebinayo sidoo kalena ay ku beegantahay maalin u dabaaldegayo in jaamacadda Muqdisho qaybteeda baajilaatin 4 kaalinta koowaad u galay jaamacadda Muqdisho oo ah jaamacaddii ugu horeysay ee laga furay wadanka burburkii kadib waxa ay soo saartay kumanaan arday ah oo adeegyo kala duwan siiya bulshada Soomaaliyeed waxayna ardayda maanta qalin jebisay noqonayaan dufcaddii 24aad ee jaamacadda Muqdisho ka baxday iyadoo dufcaddii ugu horeysay ay jaamacadda ka qalin jebisay sanadkii 2001 Cabdixafiid Nuur wararka telefishinka Somali Cable Muqdisho dal iyo dibadba kaga adeego Visa kaarka Salaam Somali Bank Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah